1998 18 May ayaa lagaga dhawaaqay gooniisutaagga Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. 32 sano ayaa laga joogaa dharaartaasi xornimada ay qaadatay Somaliland, waxaana si weyn looga xusay magaalada Burco. Kumanaan ka mid ah shacabka Burco ayaa soo buuxdhaafiyay goobta ay u astaysay sanadkan dowladda hoose ee degmada Burco inuu ka dhaco dabaaldegga 18 May. taasi oo ahayd mid bilan si weyn looga shaqeeyay bilicdeeda. hay'adaha kala duwan ee dawladda ayaa qayb weyn ka ahaa xuskani, iyagoona si weyn uga dhex muuqday dabaaldegga, muujiyena maalinta qarannimada iyo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. hay'adaha dawladda ee dabaaldegga gobolka Togdheer sida weyn uga dhex muuqday waxaa ka mid ahaa dawladda hoose ee degmada Burco, madax, shaqaale iyo gaadiidka kala duwan ee dawladda hoose oo ay ku xadhan yihiin calanka Jamhuuriyadda Somaliland iyo astaamo kala duwan ayaa ku soo bandhigay dabaaldegga dhoolatus ballaaran. wasiiro ka tirsan xukuumadda, maamulka degmada Burco, maamulka gobolka Togdheer, xildhibaano ka tirsan golayaasha wakiilada iyo deegaanka, madaxda ugu sarreysa asxaabta qaranka ayaa goobjoog ahaa munaasabaddan qaran ee 18 May, iyagoona muujiyey sida ay muqadiska u tahay maalintan oo aan madmadow lahayn. waxa aan dareen muuqdaa maankiyo ka yimid laabta muujiyey dardiinle meeshaas wankeenoo dhan koobkii murtida qaaday meeshaas wankeenoo dhan koobkii murtida qaaday. gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco ahna duqa degmada Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi Hiiro iyo ku-xigeenkiisa Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryale ayaa ka hadlay muhiimadda ay maalintani u leedahay qaranka, iyagoona si weyn ugu hambalyeeyay guud ahaanba shacabka reer Somaliland, gaar ahaan shacabka gobolka Togdheer munaasabadda qaran ee 18 May. hambalyo ciid wanaagsan, subax qurxoon dhammaan ummadda Jamhuuriyadda Somaliland. hambalyo waan leeyahay maalinta qaranka, gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa dhammaan bulshada reer Burco ee sida bilcisaan ugu soo baxay fagaaraha gobolka si ay u muujiyaan dareenkooda wadaniyeed. aad baan idinka mahadcelinayaa dhammaantiinba walaalayaal. ilaahay subxaana wa tacaala dunida markuu abuuray hanaanka dawladeed isagaa u sameeyey, hal abuur dadku samaystay ma aha, laakiin qaabka dawladnimada ee ciidanka iyo dhaqaalaha iyo maamulka iyo hanaankuba waa min asamaa. hal abuurka dadku ku darsaday waa inay qurxiyaan, isla markaana ay sii raacaan aayadda odhanaysa waxaanu ka dhignay kooxo iyo bulshooyin kala jaad ah, cid kastoo kala jaadina markaa inay maamulkeeda samaysato. innaga maanta aynu xusayno maalinta Jamhuuriyadda Somaliland, isla markaana ay ku lamaan tahay teennii hore ee Somaliland, oo isla markaana ay Burco budigu ahayd tii Ingiriiska, tan maantee dambana ay budigu tahay. waxay sunnad u tahay mid ka mid ah aayadaha Ilaahay ah in hanaag sunnihiisa ah in dadku maamul samaystaan aynu ku guulaysanay, isla markaana madaxdeenna horteedii iyo magaaladeennii iyo dalkeennii innagoo nabad iyo caafimaad qabna aynu si kalgacal isuga dabaaldegayno. haddaba walaalayaal, shuruud buu Ilaahay ku xidhay si maamuladaasi ay u raagaan ay dadka kala duwani samaysanayaan. taasina waxa ay ku caddahay ereyga ku xusan calankeenna ee ka ugu weyn dunida oo dhan. dunida iyo ereygaasina uu ereygaasi miisaan badan yahay, kaasoo ah laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah. mar labaad ilaahay wuxuu isku keen daray wadaniyadeennii, gobonnimo, muslimnimo, intaasoo dhan oo iyaduna heesta calanka ku cad oo sheegaysa midnimo, walaalnimo, gobonnimo, islaamnimo. walaalayaal, waxaan idinku dardaarayaa haddii aynu doonayno qarankeennu inuu sii jiro, inaad qaybta ugu weyn aad adigu muwaadin ka tahay, isla markaana aad ilaaliso afartaa qodob ee ku xusan heestii calanka imikaanu isu taagnay ee ah midnimo, walaalnimo, gobonnimo, islaamnimo. mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelinayaa bulshada reer Burco oo ku suntan dhammaan gobonnimo doonkii soo maray geyigeenna oo dhan,
kuwaasoo abwaan oday halgamaa aqoon-yahan qof kasta uu meel kaga jiro isla markaana ay ku xusan yihiin baalalka taariikhda aan idinku hambaliyeynayo inaad taariikhda isirka soomaalida boqolkiiba 50 keligii aad leedihiin taana aad ku ladaan isla markaana aad buuggiina gashataan xusuusnaataan mar labaad baan idin mahad celinayaa hambaliyo sanad guuro wacan anigoo guddida afkooda ku hadlaya ahna ku-xigeenka duqa degmada gudsi aad iyo aadba shucuurtaydu maanta u baxsan tahay sababtoo ah ruuxa maanta halkudheg bay samaysatay wuxuu ahaa waxaan ahay madax iyo muwaadin ladda'a jamhuuriyadda somalilan kuwii inoo saamaxay maanta inaynu madaxda noqonno ee hal iyo habeen u guuraynayay waa kuwa maanta munaasabadda inagala soo qayn galay waxaan leeyahay shacabka burco qaranka somalilan maanta cadow badan ku leeyahay meelo badan baa lagaga soo duulay inaynu qaranka somalilan difaaciisa adkayno ciidamada ammaanka ee kala duwan kuwa jiidaha ku sugan intaba aynu iskala taagno innagaa laynaga baahan yahay dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay farxad ku dabaaldega ilaahay nabadqab munaasabaddan ha inoogu dhammeeyo ilaahay munaasabaddeena sanadka sanadkiisa ha inagu gaadhsiiyo nabadgelyo barwaaqo iyo waxa aynu doonayno oo ah inaynu dalalka caalamka ka mid noqonno ictiraaf buuxana sanadkaa sanadkiisa inaynu ku dabaaldegno ilaahay ka baryanaa 32 guurada ka soo wareegtay madax bannaanida Somaliland saaka waxay ahayd mid uga duwan madax shacab iyo mucaaradba maalmaha kale waxaana ahayd dharaan midnimada iyo qarannimada jamhuuriyadda Somaliland si weyn loo muujiyay taasi oo qayb weyn ay ka ahayd dawladda hoose ee degmada Burco qurxinta iyo dabaaldegga munaasabadda 18 May daraarta madax bannaanida jamhuuriyadda Somaliland kaliyaho hawada garulihiin nimcada gooyahaga calankoodkaaga sudan kalbiskuma elinageeri buu ku yimi imisa ugo'ay ugodgalay halyey imisa ugodgalay halyey waqtigeesigiyo gashibaanu helay hoyo goblantaybu gabankeedii yahay garidhaaban laba kuku seegtayo min xiskuuray buu gacal wehelu yahay waqtigeesigiyo gashibaanu helay hoyo goblantaybu gabankeedii yahay garidhaaban laba kuku seegtayo min xiskuuray buu gacal wehelu yahay